markale inoo bilaabmay haddii ilaahay u raalli uu ka noqdo. aad baan idiin salaamayaa mudane iyo marwooyin caruur iyo ciroole. rabadaanta ka hor baa isugu keen dambeysay iyadoo aan wadankiina aan safar aan ku tagay, halkaas waad ogeedeen anigoo Hargeysa jooga, balse alxamdulilah rabbil caalamiin safar dheer kadib anigoo ku xayirmay dowladaha khaliij al carab iyo qeybo ka mid ah dalalkaasi kadib waxaan ku guuleystay inaan xagga Itoobiya markii dambe soo maro. alxamdulilah rabbil caalamiin waanigan imika barnaamijyadeennina inoo bilaabay haddii ilaahay uu raalli ka noqdo. salaan guud baan idiin soo gudbinayaa daawadayaal. barnaamijyadeennan ayaa waxaa noqon doonaa dhinaca diblomaasiyadda inaan xoog saarno iyo arrimaha dalka jamhuuriyadda Somaliland waxyaabaha ugu waaweyn ee kusoo kordhay. sidoo kale waxaanu eegaynaa bal halka la isla marayo xaaladihii bariga dhexe. marka koowaad dowladda wadanka Israa'iil ayaa safiirkii ugu horeysay dalka jamhuuriyadda Somaliland u magacowday dhawaan, halkaasoo Mikaa'il uu noqon doono safiirkii ugu horeeyay taariikh abid ee sharciyeysan ee ka dhaqan gala dalka jamhuuriyadda Somaliland, taasoo noqonaysa ballantii iyo wax isweydaarsigii labada dal in uu marayo in labadii safiir haatan ay la dhammaystiray iyadoo oo loo gudbi doono xaaladaha kale ee markaa labada dal ay isweydaarsan doonaan waa Israa'iil iyo Somaliland. haddaba arrinkan ayaa waxa uu noqday mid aad iyo aad uga farxiyay dhammaan shucuubta Somaliland meel walba daafaha caalamka ay joogaan kadib markii wadankooda aqoonsi uu ka helay wadankaasi super power ka ah Israa'iil. haddaba Israa'iil waxa ay dadka ka faalooda arrimaha siyaasaddu ay sheegayaan in ay xiriir aad u ballaaran oo qoto dheer ay la yeelan doonto Somaliland, taasoo ah dhinaca amniga, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca siyaasadda, iyadoo oo wadanka Israa'iil haatan uu qorsheynayo in uu si weyn uu howlmariyo howlo badan oo uu markaa uu doonayo inuu ka fuliyo dalka Somaliland oo ugu horeyso dhinaca dhaqaalaha, dhinaca beeraha sidii uu ra'iisul wasaaraha Netanyahu hore u ballan qaaday. haddaba dadka siyaasadda ka faalooda ayaa waxay sheegayaan in dowladda Israa'iil ay ka yegleeli doonto saldhigyo military oo aad u waaweyn gudaha Somaliland, taasoo macnaheedu uu yahay in xiriirka labada dal uu isu bedeli doono mid isku dhisan is-aamin iyo in dowladda Israa'iil ay ka hesho marin biyoodka badda cas amaba berbera corridor saldhig military oo ay kula socdaan quwado aad u waaweyn oo aan weli la shaacin. dadka siyaasadda ka faalooda waxay sheegeen in wejiga koowaad uu noqon doono in saldhigga military ee berbera laga sameyn doona uu noqon doono mid markaa danaha wadankaasi Israa'iil iyo nabadgelyadiisa laga ilaaliyo. qaybta kale Somaliland wax warar kama soo saarin arrimahaas, balse wararku waxay sheegayaan dowladda Israa'iil ujeedooyinka ugu waaweyn ee aqoonsiga Somaliland iyo wax isweydaarsiga inay kow ay ka tahay sidii labada dal ay isu weydaarsan lahayn dhinaca amniga oo ay saldhig u tahay saldhigii military. taasna macnaheedu waxa uu noqonayaa mid guul u ah jamhuuriyadda Somaliland in ay dal aad u quwad weyn oo nuclear nation ah ay iskarabsadaan, waxaana wax weyn ay ka taraysaa marin biyoodka badda cas, sidoo kale amniga guud ee qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika. wararku waxa ay intaa ku darayaan oo ay sheegayaan in ay iyaduna wadanka Mareykanku uu isaguna aad u qoondeynayo in uu isaguna uu ka mid noqdo xulafada saldhigyada ka samaysan doona Somaliland, taasoo noqon doonta mid aad u ballaaran isla markaana guul ballaaran u ah qaranka Somaliland. si kastaba tee dowladda Somaliland kama hadal arrimahaasi walow ay ka gaabsatay, haddana wararku waxa ay sheegayaan in arrinkaasi uu yahay mid ay aad looga wada hadlay isla markaana si weyn looga shaqeynayo. haddaynu u gudubno wadamada bariga dhexe, saad ogeydeen imika muddo 2 bilood aba dagaalo aad u xoog badan ayaa ka socday oo wadanka Iran iyo dhexmarayay wadanka Mareykanka, sidoo kale oo Israa'iil iyo Lebanon la fahantooda dagaalo aad u xoog badan halkaas ay ka dhaceen. haddaba hadda xagga la isla maraya xabad joojin ayaa labada dhinacba ay ku dhawaaqeen, waa xulafada Mareykanka iyo xulafada Iran. xabad joojintii Lebanon way dhaqan gashay iyadoo oo ay dadweynuhu haatan ay ku noqonayaan guryahoodii, iyadoo la sheegay 1,200,000 oo qof in dowladda Israa'iil ay ka rartay deegaanada koonfurta wadankaasi Lebanon si ay markaa uga ilaaliso amnigeeda. arrinku waxa uu haatan u marayaa in Mareykanku uu soo dabacay, Iran ay soo dabacday, Lebanon soo dabacday, Israa'iil ay soo dabacday, wala isku daalay sida wararku ay sheegayaan in khasaaro ba'an ayaana dagaalkan uu ka dhashay. haddaba ujeedada dagaalkan Mareykanka iyo Israa'iil ay ka lahaayeen waxay ahayd in la burburiyo gabi ahaanba dowladda wadanka Iran iyo Hezbollah,
labadiina laguma guuleysan sida ay wararku ay sheegayaan iyo dadka siyaasadda ka faallooda, walow dhaawac aada u weyn loo geystay waxyaabaha kaabayaasha dhaqaale ee wadanka Iiraan iyo Lubnaan labadaba. balse dowladda Iiraan waxa ay ka badbaaday shirqoolkii ballaadhnaa ee madaxweynaha wadanka Donald Trump uu la beegsaday oo ahaa in laga saaro dowladda islaamka ah ee wadanka Iiraan. waxaana dadku ay sheegeen in sanado badan ay ku qaadanayso wadanka Iiraan inuu ka soo kabto dhaawacyada waaweyn ee military ee loo geystay. dadka haddaba arrimahan odorosa waxay isku raaceen dhammaantood in dagaalkii khaliijku uu kusoo dhammaaday in aan waxba la kala faa'iidin, isla markaana quwadihii meesha ku hardamay mid waliba awoodooda ay muujisay. dadka haddaba arrimahan odorosa waxa ay sheegeen in ay geopolitiska bariga dhexe oo dhan iyo geeska Afrika ay wax weyn u ka bedelaya dagaalkaasi. quwaduhu way istijaabiyeen wadanka Iiraan waxa uu go'aan ku gaaray haddii khadka laga saaro in dalalka khaliijkuna ay khadka ay ka baxayaan, iyagoo garaacay dhuumaha saliidda isla markaana xidhay marinka Hormuz oo ah marinka ay maraan boqolkiiba ilaa 10 sida la sheegay shidaalka adduunku. khalkhal baana halkaa ka dhacay, walow Mareykankuna uu dhinaciisa u sheegtay in uu isaguna u dhinaciisa u ka xidhayo dekadaha wadankaasi Iiraan inaan la tegi karaynin. halka xaalku marka uu marayo waxay u badan tahay sida uu madaxweynaha Mareykanku sheegay in ay heshiis ay ka gaadhaan kama dambays ah in marinkaasi uu noqdo marin furan. haddaba meesha indhaha lagu hayaa imka waxa ay tahay Bab al-Mandab oo ay Xuutiyiintu dhinaca waqooyi ay ka fadhiyaan, dalalka Djibouti, Somaliland iyo Eritrea ay dhinaca koonfureed ay ka fadhiyaan. haddaba marinkaas ayaa waxa uu noqon doonaa sidii hore aan idinku sheegay, maadaama Israa'iil soo caga dhigatay in Mareykanka iyo xulafadiisuna ay doonayaan marinkaasi inaan loo gacan dhaafin, isla markaana quwadaha kale ee Russia, China in wadamo fara badan oo iyaguna aad u daneynaya sida Turkiga oo kale looga hormarin. haddaba xaaladu imika waxa ay maraysaa xabad joojin in dhinaca iyadu ay isku afkarteen, dagaalkina uu joogsaday, walow laga shaki qabo haddii uu dagaalkani uu mar kale u qarxo inuu noqon doono mid markaa musiibo weyn ka abuuray bariga dhexe. dalalka khaliijkuna sida wararku hadda ay sheegayaan dhaqaalahoodii aad iyo aad ayuu dhulka uu u galay, iyadoo oo wadanka Qatar oo kaliya ay khasaareen in ka badan 100 bilyan oo dollar. wadanka Sacuudiga ayaa la sheegay 50 bilyan, halka Imaaraadkana la sheegay ilaa 45 bilyan oo dollar inay khasaareen. Kuwait ayaa khasaare weyn u soo gaadhay, trillion ay hadda ay maraysaa khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ee wadamada khaliijka. dalka boqortooyada Sacuudigu hadda waxa uu joojiyay mucaawinadii uu siin jiray qaybo kamida dalalka reer galbeedka, siiba dhinaca ciyaaraha sida tennista, sida waxyaabaha kale ee uu markaa uu kusoo jiidan jiray dalalka reer galbeedka, iyadoo oo macrada fara badan haatan la xidhay kadib markii ay joogsatay dhaqaalihii badnaa ee ka iman jiray dowladaha khaliijka ee iman jiray qaaradda Yurub. maxsuulka dagaalkan ka dhashay ee aan kusoo gabagabeynayna waxa ay tahay inuu weji horle uu u yeelay xaaladii bariga dhexe iyo badda cas, halka imika muranka ugu badan iyo hirdanka ugu wadinna uu ka jiraa waxay hadda noqonaysaa marinka badda cas ee ay Somaliland ay ku taalo. warar lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in dalka Israa'iil aanu kali ku ahayn aqoonsiga Somaliland, isla markaana dowlado fara badan ay ku daba jiraan sida uu sheegay madaxweynaha Somaliland dhawaan. waxa ay haddaba noqonaysaa oo ay isugu soo biyashubatay dalalkii khaliijka dhaqaalahoodii oo dhulka galay, dagaalkan la ajligii Iiraan oo quwadeedii military iyo tii dhaqaaleba la burburiyay, wadanka Lubnaan oo aan jecelahay imika bal in aynu halkan dhugano. iyadana waxa ka bilaabmatay in ay shacabku guryahoodii ay dib ugu soo noqdaan, iyadoo la sheegay in ka badan 1 milyan iyo 500 oo kun ay ka qaxeen guryahoodii, isla markaana haatan ay si habsamiya ugu soo noqonayaan, iyadoo tani ay noqonayso dagaalkii ugu xumaa taariikh abid ee ka dhacay wadankaasi Lubnaan. labada dal ee Lubnaan iyo Israa'iil ayaa dowladahoodu heshiis xabad joojin ay ku gaareen, iyadoo oo ay ka mid tahay qodobada in markaa hubka laga dhigo xoogaga Xisbullah, walow taasi sida loogu guuleysanaya ay adag tahay sida ay sheegeen.
ilaa 2,000 oo qof ayaa ciidamada Israa'iil ay ku dileen wadanka Lubnaan halka ay 2,500 ay ku dileen wadanka Iran Mareykanku halka la sheegay boqolaal kale oo Israa'iiliyiin iyo Mareykan inay ku dhinteen dagaalkaas khaliijka iyada laftigeeda dhaawacyo aad u ballaaran ayaa soo gaaray iyadoo warshada ugu weyn ee gaasta laga soo saaro wadankaasi Qatar imika dib habeyn aad u xoog badan oo ilaa 6 sano ay qaadanaysa sida la sheegay $20 bilyan oo dollarna ay ku kacayso in dib loo yagleelo dagaalka khaliijku wuxuu saameyn ku yeeshay gabi ahaan dhaqaalihii caalamka iyadoo haatan dhaqaalihii saliidu wax yar uu hoos u dhacay ayaa dadka siyaasadda dhaqaalaha ka faallooda waxay sheegeen inay qaadan karto ilaa muddo 6 bilood ilaa sanad ah inay wax waliba caadigoodii ay ku soo noqdaan diyaaradaha waaweyn ee khaliijka sida Qatar Airways iyo Emirates ay saameyn aad u ballaaran ay ku yeelatay dagaalkani iyadoo la sheegay khasaare aad u ballaaran uu gaaray si kastaba dalka Mareykanka Israa'iil Iran wadankaasi Lubnaan Khaliijul Arab khasaare aad u weyn oo ballaaran ayuu gaarsiiyay dagaalkani lama garan karo kaalintii Sacuudiga ee adduunweynaha iyo wadanka Imaaraadka iyo Qatar iyo ay ku lahaayeen inay sii socon doonto iyo inay dib u habeyn ay ku sameynayaan siyaasadooda maadaama ay ogaadeen isla markaana ay dhadhamiyeen xanuunka uu leeyahay dagaalku adduunweynaha dhan wuxuu isku raacay in xabad joojintaasi ay noqoto mid waarta dalalka reer Yurub aad bay u soo dhaweeyeen dalalka caalamka oo dhan aad bay u soo dhaweeyeen xabad joojintan dhaqan gashay iyadoo la filayo in ay si rasmi ah marka dhinacyadu ay isugu afkartaan isla markaana si rasmi ah loo soo afjaro colaadda aadka u xoog badan ee ka taagan bariga dhexe dhinaca kale Somaliland xaaladeedu aad meel fiican bay u maraysaa sida ay dadka siyaasadda ka faallooda ay sheegeen waxaana quwadaha waaweyn saf ay ugu jiraan in ay la kulmaan madaxda Somaliland si ay uga wada hadlaan marinbiyoodkan badda cas oo ka khatarsan marinka Hormuz sababtoo ah waxa mara badeecada adduunka 5% sida la sheegay isaga kala goosha qaaradaha adduunka marinkaas ayaa waxa uu yahay marin ay doonayaan quwadaha adduunku inay ku loolamaan waana arinta sababtay itiraafka ay Somaliland ka heshay adduunweynaha si kastaba ahaatee daawadayaal barnaamijkeenan ayaa waxa uu yahay barnaamijkeenii in aan ugu talagalnay in aan ku dhugano waxyaabaha markaa adduunka ka soo kordhay waxaan idinka ballan qaadaynaa in waraysiyadeennii in siyaasiyiinteena horumarka qaranka aynu halkii kasii wadi doono iyadoo oo ay noqon doonto barnaamijyadeena Saxafi TV channel mid ay si joogta ula socon doontaan haddii Ilaahay uu raalle uu ka noqdo waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan intii kala soo xidhiidhay markii aan ku sugnaa dalka hooyo ee hambaliyada iyo fariimaha aadka u weyn soo gudbiyay saaxiibayaal waa isu soo noqonay dalkeenii hooyana waxa uu maraya marxalad aad u wanaagsan haday tahay dhinacii dhismaha haday tahay dhinacii nolosha waana runtii wax Ilaahay loogu mahad celiyo mar hadii wadanka siyaasaddu ay u degto nin professor oo runtii ku takhasusay arrimaha dhismaha qaramada ayaa waxa uu sheegay hadii aad aragto ayuu yiri wadan horumar gaaray oo dhismay waa wadan ay siyaasaddu ay u xasishay isla markaana ay u degtay Somaliland markii aan tagay waxaan arkay siyaasadeeni oo inoo xasishay dimuqraadiyadda oo hirgashay iyadoo ummaddu ay gacmaha haysato mucaarad iyo maxaafadna loo heelan yahay in wadankan uu aqoonsi caalami uu helo waa dal maro idin leh isu soo noqosho dambe oo xiiso leh sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh